kahor intaadan qofba jeclaan marka hore waxaad u baahan tahay inaad xiriir la yeelatid naftaada jecelna aad ku beerto si ay u sahlanaato jecaylka dadka. waxaan kula wadaagayaa 6 qodob oo muhiim ah kuna tilmaami doonaa jecaylkaaga. 1. naftaada jeclow kahor intaadan qof bini'aadam ah jeclaan. baro sida loo jeclaado naftaada, taasoo micnaheedu tahay inaad ogolaato kuna qanacdo wax kasta oo aad tahay iyo wax kasta oo aad haysato adiga. waxaa jira waxyaabo badan oo aad haysato adiga, qaasna kuwa adiga, lagaagana baahan yahay inaad ku xisaabtanto midaas. waxaa jira waxyaabo uu alle kuu siiyey hiba ahaan, waana inaad ogaato inaysan jirin cid haysata waxa adiga lagu siiyey, waana midda loo baahan yahay inaad qanaacada kaga qaadato. haddii aadna ku dhiban tahay jacaylka naftaada, keliya si adag u shaqee si aad kor ugu qaaddo xirfadaha ku siin kara jacaylka naftaada. waxaad dhistaa kalsoonidaada adigoo ogolaanaya tagtadii hore inay ahayd taariikh, timaadadana ay tahay ciwaan cusub iyo beej cusub, taasoo lagaaga baahan yahay inaad ku qorto timaadada cusub si markaad uga gudubta ay u noqoto taariikh. 2. daryeel naftaada in ka badan intaad daryeesho tan dadka kale. tani way yara adkaan kartaa haddii aadan gacanta ku haysan naftaada oo aad tahay qof ku dul nool aragtidiisa, ra'yiga uu ka qabo shay ama isu arko inuu yahay mid xaqa u lahaatay inuu siiyo daryeelka iyo jacaylkaba. waxaan si guud kuu leeyahay waxaad hantinaysaa dad badan qalbiyadooda. waxaad u baahan tahay inaad barato jacaylka dadka iyo midka naftaada. waxaa loo baahan yahay inaysan iska kaa qaldamin jacaylka naftaada iyo midkaas. micno kuu samayn mayso naftaada inaad ka hagarato waxyaabaha qurxoon aadna ku biisho qof kale oo xitaa laga yaabo inuusan meel kugu ogeyn adiga. waad fahmi kartaa intiina badan micnahaan ula jeedo. haddii ay jirto lacag aad ugu tala gashay qof inaad siiso si ay ku jeclaadaan adiga, may tahay lacagtaas mid aanan kaa go'i karin adiga. se waxaa habboon inaad ku iibsato waxyaabaha soo jiidashada leh, waxyaabaha kaa dhigaya mid lejan ah. iibso cadar aad u udgoon badan, kuna iibso labis qurux badan. jirkaaga daryeel oo dhis, ku bixi waqti oo ku bixi lacagtaada wax walba ku qurxinaya adiga. 3. yeelo dabeecad wanaagsan iyo akhlaaq xitaa haddii xaaladdu eg tahay mid negatif ah. raadi waxyaabo positivity ah, ha yaraado ama ha weynaado. muhiimaddu waxay tahay waxyaabaha wanaagsan waxay nafteenna siiyaan caafimaad maskaxiyan iyo mid muuqaal ahaan. waxay noo horseedayaan dareemo qurux badan, tan dad badan inay fahmaan ayay u baahan tahay. markaad la kulanto waxaana fiicnayn oo ku farxad dilaya adiga, ha isdhiibin, keliya wanaag ku beddel, kana eeg dhanka wanaagsanaanta, kuna hadal wax wanaagsan. la hadal si aysan kaa filin, u hadal si qof aan wax dhiba haysan. taasi waa adiga iyo guushaada, iyaguna waa guuldaradooda. dabeecadda wanaagsan waa hadiyad aysan cid waliba haysan, laakiin ay macquul tahay inaad isbarto dabeecadahaas. isticmaal waxa xun inaad ku beddesho wax wanaagsan. ha cayn hana eeday naftaada xitaa haddii aad guuldaro la kulantay, waayo ma mudna inaad sidaasi ku tilmaanto. haddii aad u malayso inaadan ku wanaagsanayn la hadalka dadka, dhib ma lahan, keliya isticmaal ereyada waan ficnaanayaa, dadkuna waqti iyo dabeecad wanaagsan waan kula dhaqmayaa. mar walba naftaada sidaas ku dhiirigeli adiga. 4. samayso wax walba ku farxad gelinaya adiga. inaad faraxsanaato waa qayb ka mid ah jacaylka aad naftaada u qabto. abuur waxyaabo adiga ku farxad siin kara. samayso waxyaabo firfircooni siin kara jirkaaga, dareenkaaga, kuna dareensiiya waxa fiican oo inta badan wanaagsan. farxaddu waxay ku xiran tahay dadaalka aad noloshaada ku samayso si aad u qabato waxyaabo badan oo wanaagsan. 5. waqti keliya la qaada naftaada. waxyaabaha ka midka danaynta iyo jacaylka nafta waxaa qayb ka ah inaad waqti la qaadato naftaada. aadna ogaato way adkaan kartaa inaad waqti ku dhex qaadato qoyskaaga, saaxiibadaada iyo mujtamaca. taasi ma awoodi doontid inaad waqti ku bixiso naftaada. haddii ay jiraan dhibaatooyin kuwaas oo baahan xal, waqti la qaado naftaada, hubaal xal un way ku siinaysaa. marnaba caajis ha ku dareemin inaad naftaada waqti keliya la qaadato. tani waxaad ku xaqiijin kartaa heerka ay naftaada u jirto xiriirada kale ee kaala dhexeeya qof ama bulsho. xalka gaaris kadib waxaad ku dareemi doontaa farxad, deganaan iyo firfircooni maskaxiyana. waa inaad ogaataa inaad naftaada waqti la qaadato la micno maahan inaad social media waqti ku bixisid. soco keligaaga adigoo joojiya dhammaan platformska social mediaha.
fariiso kaligaaga adigoo deggan, wax kalena ha qaban. keliya waqti sii naftaada, ka toos hurdada waqti hore, ka duwanow dadka kale oo ugu yaraan 30 daqiiqo wax akhri, haba ugu badnaato buugaagta. 6 ogolow inaad tahay qof muhiima oo aan la heli karin. tan waa muhiim. waxaad ogaataa inaysan micno lahayn inaad xaadir ahaato waqti kasta. waxay dishaa qiimahaaga. noqo mid mararka qaar loo baahdo, la raadiyo loona xiiso. waqtiga lagu helana ha noqon mid waqti badan ku bixiya ayaga. taas maahan mid jirta, qiimahaagana kor u qaadi mayso. ka tag iyagoo kuu baahan, welina aan kaa xiiso goyn. ka dhabee hadafyadaada, wixii kale ha kuu dambeeyaan. muhiimaddu waa taas. wax walba waxaa ka muhiimsan waa adiga naftaada iyo qiimahaaga. waan rajaynayaa mowduucan inuu idin qanciyey. laagtaada waa inoo muhiim inaad ku soo biirto youtube channelkeena, wax badan ay inoo tahay. insha allah midkaan midkiisa xiga. salaam.